بسم الله الرحمن الرحيم. bahalada dhaadheer ee 3 mitir waxay hal mar wada cuni karaan ku dhawaad dhammaan culeyska jirkooda. Ugaarsiga jasiiraddan Komodo waxay leedahay qorshe muhiim ah. waxay si hufan u ansixiyeen isbuuca waxay awood u leeyihiin inay garaacaan dadiyowga howlaha kale isla markaana waxay ilaaliyaan dheelatirka gudaha deegaankan qadiimiga ah. jasiiradaha volkaanaha ee Komodo ayaa ku yaal xuduudda Indonesia iyo badweynta Hindiya oo ay weheliyaan jajabkii hore ee taariikhda Aasiya iyo Australia. waxay sameeyaan ilaa mid ka mid ah gobollada ugu biology ahaan ugu muhiimsan adduunka. jasiiraduhu waxay hoy u yihiin kala duwanaansho nololeed oo aan la rumaysan karin. dunida reer galbeedka ma aysan baran muhiimadda ay leedahay jasiiraddan gaarka ah ilaa bartamihii qarnigii 19aad. markii ay diiwaan gelisay sahmiyaha Ingiriiska iyo saynisyahanka Alfred Russel kaas oo gobolka loogu magac daray. intuu socdaalkiisa ku jiray waxa uu arkay makhluuqaad qariib ah oo ku nool jasiiraddan. waxay ku biireen noocyada aan cilmigu aqoon meel kalena lagu arag. dhanka bari waxaa ku yaal dhulkaas iyo xayawaankooda la yaabka leh kangaroo. halka galbeedku xooluhu u hormareen si ay u dhex mushaaxaan kaymaha iyo bannaanka. inta u dhexaysa kuwa halkaas ku nool ayaa u haray inay barwaaqoobaan. jasiiraduhu badankood waa soo jireen 2 milyan oo sano ka hor. waxay ku samaysmeen silsilad volkaano ah. waxay ka soo baxeen badda hoosteeda. jasiiradaha volkaanaha ee dhawaan la sameeyey waxay lahaayeen ciid hodan ah. waxa kaliya ay u baahnaayeen waxay ahayd dhirta. dhirtu waxa ay ahayd kuwii ugu horreeyay ee yimid iyagoo mawjadaha baddu ay xambaarsan yihiin miro iyo abuurkood. si cajiib ah oo aan biyaha u adkaysan karin ayaa dad badani awood u yeesheen inay sannado badda ku noolaadaan.